horreeyey zayd ahay oo xoogaa howlgaalada ka sheegay oo ima taariikhdeeda aan ku sheegi doono 1920kii markii laga soo guuray jaarraa wadata ee ingiriisku yiri meesha lagu soo banaysa meel degmaa ku soo banayso waa meel reer gaar iyo leeyahay oo wada beero laga dhexgalaaday oo waqtigaa jaarraa wadata beeraha waa la bilaabay magaalada ka soo banaysa degmo meel dadka oo dhan ka dhaxaysa oo beeraha iyo angaara loo lahay bay ku habboon tahay oo 1999 la iclaamiyey 20 jeer la aasaasay waxa ku xigta 1995 markii la aasaasay xafiisyada dawladda la aasaasay ceelka biyaha iskuulkii Sheekh Cabdiraxmaan Qaadanood xafiisyada gobolka xafiiska boostada saldhiggii booliiska oo aan ahayn ka mid ah taqaanaan anahayneen halkii sivil centerka la oran jiray ee ahaa 35 ilaa 37 bay taasiin gashay waxaa ku xigay 1940kii talyaanigu markii uu soo galay isagoo talyaanigu loo leeyahay Itoobiya inuu ku horreeyey 5 sannadood kadib Itoobiya haystay in Soomaaliland isku soo fireeyay ugu dambe dagaalkii Naasiyiinta iyo xulafada ka dhaxeeyay oo 1940 sano ah 1948kii Soomaaliya way markii hal aasaasay ee Ingiriisku waddanka oo dhan u qabtay talyaaniga uu ka saaray ee uu soo jeediyey in shantii Soomaaliyeed ay isku xeeraan oo Soomaaliya la sameeyo oo Bariitaaniya cudma iyo Soomaaliya cudma la isku xidho iyo sidii loo fashilmay shirka Axmed 1948 gubidii la gubay jigjiga badbaadiyey ee dadka xornimada ahaa ay soo qaxeen ee Hargeysa ay soo qaxeen waxaa ka mid ah Ethiopian xabashidu dawladda reexay siyaasad markay ku soo duushay qabiilka galay oo qabiilka Kenya iclaamiyay ahaa 1948kii markii gudubka la duray qabiilka Kenya qaatay iyo dagaalamada Ethiopia waa la dagaalamay la laayay iyo firxadkoodii boorba soo galay iyo hal soo dhigo kii la yiri taariikhdii reer boorba ay ka galeen ay yiraahdeen dhimasha ka dhacay hadii dawladda Ingiriiska ay dadka dhigto ee barasaabka Hargeysa yiri tobankii halka hadda galaada boorba magaalada ka bixin yiri taariikh la ilaawo aan gobol leeyahay bay ahay waxa ku xigta xisaaskeenaya kulkii la bixiyey taariikhda reer Awbara ay ka galeen ee qayradii boorba ku soo gudeen laba baabuur oo Hargeysa Hargeysa ay ka qaybiyeen oo la yiri odayaasha dib soo qaybiyay ayaa biyaha Hargeysa yimid oo dooxa u dhacay maxay ujeedadu tahay iyadoo dad ku qaybiyeen waddankeedii waa la dhiibay markii boorba iyo barbaraya say ala dhiib doonaan ay u kacno taasina taariikhda la xariimo laba ilaawana ayay markii barasaabkii Hargeysa soo jeediyay ahayd wili qabaayilkood kale oo dhan waxay leeyihiin hogaamiye ay leeyihiin idinkuna waxaad lahaydeen hogaamiye aad lahaydeen hogaasiyaad lahaydeen qof ama Suudaan bixiya ama ugaas bixiya qof keena iyo hogaamiye wuxuu maxay maskax qormaatiyin laakiin hogaamiyada ay bixisay qofkii keena yiri saddex qabiil saddex niman ay keeneen ee lagu heshiin waayay ee barasaabkii uu markaa ku heshiiyay weli nin kaliya la dhigay doonayay qaarada taariikh loo leeyahay dadka taariikh si la shaqo wada xamalay oo dhaafo oo ka dhisan doona oo markii uu kartay dadka filaysiyo ee wasiirkiisa kun iyo 500 askari siiyay kun iyo 500 qoris oo qolka Allah oo ninkaas abu istaaqo ku daafiraya ee ka qaadana taahaw ee waxa ka dhawriyay ka shaqeeyo waxa ka dhawriyay ingiriiska oo xaroolay ee midda la joogay jiray taariikhdaasina taariikh ballaaran bay ahayd oo iyadana la garan waayay qodobada caynkaasi ka kooban ay ku saabsan tahay deegaanka kulkii magaalada la degay dadkii degay magacyadooda baandeer ayaa carabkii soo gurtay ee degtay intaan lagu xusuusnahay 8 qof magacyadooda halkaas xaadirin doona oo carabkii magaalada degay oo qof xaadirin doona haddii ay maayo waxaa kaloo ka yaashay wanaag sameeyeen magaalada la aasaasay cid kasta oo ku soo dhaweeyay la yiri oo Soomaaliya oo dalkeena oo ku soo dhaweeyay waxa
lambarkii koowaad qaatay dadkii soomaaliyeed ee doorna soo degay oo si hagar la'aan u soo degay abiilka garxaysto ayaa soo degay oo si gaar u jiiday magaalada kuwaasi oo garanaya haddii gaadiidka tahay haddii mukhaalaha tahay haddii balaastarga tahay si xoogna ayay u degeen haddii soo magaalada magaalada reerkaas oo yaalin waliba aabahina goorka ka soo jeeday weliba goorka ka soo jeeday halka ku qoray baaqi isku xamilatiga